وفرنيت maadaama awaltii horeba la yiri difaaca adkeeya sidii bay difaac u adkeynayeen meeshaas bay ku jireen haddana waxay ii sheegeen in diyaar u yihiin saacadii la yiraahdo hore u dhaqaaqa inay maaragtay hore u dhaqaaqaan haddii alla idmo insha Allah waa furumaha galmudug dhammaantood waxaan xoog saaraynaa haddii alla idmo inaan hal mar hawlgal wada muxuu ahaa isku waqtiya in laga wada dhaqaaqo insha Allah waqtigaasna waa la wadaagaynaa haddii Ilaahay yiraahdo wasil iyo aagaas ilaa taqriiban waxay difaac kaga jireen dhul 150 kilomitir kor u dhaafa oo hadda aan soo wada maray wata wasiir maxay yahay ujeedka kormeerka halkaas aad ku tagtay kormeerku wuxuu ahaa maadaama aan u soo rabno in nimankan khawaarijta laga muxaasifeeyo deegaanada galmudug waa in aan horta marka hore ciidamadii intaan u tagno dhiirigelino u sheegno ujeedada iyo muhiimadda ay leedahay khawaarijtan in laga sifeeyo deegaanada marka waxaan ka soo bilownay safka ugu sareeya aaga muxuu ahaa oo saldhigeedu uu yahay wasil qaybaha kalena waa tagaynaa haddii alla idmo si deegaanada galmudug ilaa ceeleer waxaan rabnaa haddii alla idmo insha Allah in la tago oo laga sifeeyo khawaarijta laga sifeeyo oo ilaa xuduuda Hirshabeelle inaan gaarno haddii alla idmo marka dhulkaas waxa weeye waa maadaama masaafadu ay aad u dheer tahay aan rabno inaan gaarno waa in dhiirigelin iyo muxuu ahaa iska warqab iyo ciidanka isku xilkiisa iyo qaabka ay maaragtay u kala horumarayaan iyo sida muxuu ahaa qayb kasta barta ay tagayso in micnaha loo sii sheego oo loo tago oo loo sii sheego la yiraahdo waqti hebel waxa la ka rabaa idinka inaad maaragtay meel la tagtaan marka qaabkaas aan u soconay oo aan u tagaynay maadaama muddo sanad iyo wax la jira oo muxuu ahaa wasiirka amniga uu san shaqaynaynin haddana wasiirka amniga la magacaabay waxaan in ciidamadu ay wasiirka amniga arkaan oo la shaqeeyaan oo waxa weeye amarka qaataan taas baan booqashadaas aan ugu tagnay shaqadana ay hawlgalku insha Allah uu bilaaban doona haddii Ilaahay yiraahdo mardo wata ciidamada aad kormeerka ku sameysay ma ciidamada deegaanka ah mise waa kuwa galmudug ee daraawiishta galmudug oo halkaasi in muddo joog waxay ahaayeen ciidamadii daraawiishta ee galmudug oo muddo halkaas muxuu ahaa ku sugnaa ciidamada deegaankana dabcan waa la joogaan oo kama marna laakiin ciidamadii meesha waxa ku astaysan waxay tahay ciidamadii daraawiishta ee galmudug ayaa ku astaysan halkaas wata wasiir markii hawlgal la galayeen ciidamada deegaanku ka qayb qaataan waxa weeye markasta waa difaacana waxbay ka qabtaan wasiir galmudug waxaan ognahay dhawaan hawlgalla ayaa meelo gooni ah ka bilowday haddana hal mar ayay istaageen oo hawlgalladu sidii la rabay ugama socdaan maxaa hortaagan hawlgalka galmudug muxuu yahay caqabada aan nala wadaagi karto ka jirta galmudug oo dagaalku uga bilaabanaya wax caqabado gaar ah ma hortaagan ma ay jirtee waxa weeye meelaha hadda laftirkooda uu wax ka dhaceen ayagaa weerar soo qaaday waana muxuu ahaa lagu jabiyey laakiin galmudug sababta waxa weeye waxay tahay in dagaalkan hal saf ballaaran in lagu qaado weeye haddii la yidhaha hal meel baa lagu qaadayaa meesha kale waa isku gurmanayaan meeshaas bay culays saarayaan laakiin saf ballaaran markii laga dhigo dagaalku waxa weeye culayskaasna waa ka fududaanaya ciidanka ayagana si sahlan oo fudud baa loo jabinaya laakiin markii meelaha ay soo weerareen masalan baxdo kale iyo ayagaa soo weeraray sidaas ciidamadu dagaalka ugu sameeyeen dhinaca kale muxuu ahaa ayaantii dhusumareeb agaarkeedana ayagaa yimid sidaas ciidamadu u dhaqaaqeen hore ugu socdeen marka laakiin qorshihii rasmiga ahaa ee lagu dhamaystirayay waa muxuu ahaa mar dhow bilaabanaya insha Allah hadii la idmo si isku wada mid ah oo isku wada waqtiya oo waxa weeye muxuu ahaa sidii ciidan lagu yaqaanay ayuu hadii alla idmo insha Allah ku bilaabanaya wasiir wasaaradda amniga tan iyo markii lagu magacaabay ka hor waxaa jiray in la bilaabayo qorshe loogu hirgelinayo ciidamada daraawiishta galmudug oo qaybo kamid ah galmudug laga hirgeliyay balse istaagay maxaa ka qabanaysaa qorshahaas daraawiishta kaliya ma ahane waxaan dhisaynaa booliskii baan dhisaynaa daraawiishtii baa la dhisayaa waa la isku dubaridaya haddii alla idmo inay noqdaan ciidan
deegaanada galmudug oo dhan ka howlgalo ciidan ay galmudug ku tashto inay noqdaan ciidamadii waxa weeye daraawiishta si fiican baa isku dhafkooda in loo samaynayaa loo tayeynaya haddii aan ladin tababar hadday noqoto iyo hadday noqoto muxuu saad iyo saanad intaba waa taasi waxa weeye waa qorshaha galmudug u yaala kuwii booliska sidoo kale ayagana booliskii galmudug ayaa hadda waxaa noo soo qalinjabiyey 200 ugu horeysay waxaan u bilaabaynaa qayb baan u bilaabaynaa 200 hadda waxa weeye waa la diyaar gareeyey darkoodii waa la siiyey gaadiidkoodii waxa weeye waa diyaar howlgalku marka waxa weeye hadday noqoto nabad sugidda hadday noqoto booliska hadday noqoto daraawiishta intaba waxa weeye qorshaha ayay noogu jirtaa sidii loo tayeyn lahaa iyo sidii loogu samayn lahaa wasiir waxaa jirta deegaanada galmudug beelaha degaa dhowaan inuu madaxweynaha kulan la qaatay siyaasiyiintooda kuwooda ugu waaweyn kulankaas oo looga tashanayey sidii la isaga xoray lahaa argagixisada kulankaas kadib wax dhaqdhaqaaqa oo socdo gooniya dadku ma arkin maxaa kulankaasi ka qabsoomay ilaa hadda se qorshayaashii lagu heshiiyey maxaa ka hirgela maxaase nagala wadaagi kartaa dee horta hore beelaha galmudug dega ilaa 11 beelood weeye deegaanada 4 degmo kamidana waa dhulkan ay shabaabku muxuu haystaan waxa muxuu ahaa in la wada tashto la isku sheego qaabka loo howlgalayo beel kasta muxuu qaabka uga qayb qaadanayso ayuu qorshahaasna waa la gaaray kaliya waxaa dhiman dhaqaaqiina dee waxay ku xirnayd in wasiirka amniga la magacaabo wasiirka amnigana waa la magacaabay dee hadda waxaan magacaabanahay muddo 10 cisho ka yar ayaan magacaabanahay maadaama muddadaasaan magacaabanahayna dee micnaheedu waxay tahay in howlgalkii uu mar dhow bilaaban doono haddii aan leed oo haddana aan soo kormaray ciidamadii iyo axwaashooda aan soo kuurgaray waa taa ugu dambeyn fariinta bulshada Soomaaliyeed raadiyo Muqdisho ka dhageysanayso la wadaagaysa maxay tahay fariinta aan u dirayo bulshada waxay tahay nimanka khawaarijtu waa jabeenayaan micnaha la dhowran hal israaciyo hana laga takhaluso dhibaatada ay ku hayaan ummadda haloona midoobo meel kastana waxa weeye khawaarijta waa la arkay in la iska celin karee haloo istaago hadday noqoto ganacsato hadday noqoto iyo hadday ciidan noqoto iyo hadday bulshada intaba ay noqoto in la iswargeliyo in laga qayb qaato in dawladda lagu garab istaago dhammaantiin waxaan kula talinayaa oo aan idiin sheegayaa bulshooy khawaarijtii waa jabtay yaa laga harin oo laisku soo noolaynin horaha la isku raaciyo waa mahadsantihiin aad baa u mahadsantaa wasiir